Soo dhawaad saaxiibayaal, maanta waxaan la wadaagi doonaa the best way to learn English in 2024. Habka ugu fiican ee aad ku baran karto luqadda Ingiriiska sanadka 2024. Sidaynu ogsoonnahay, waqtigan casriga ah 2024 waxaanu joognaa xilli teknoolojiyadu ay noqotay meesha kaliya bulshada isku timaado ama ay ku kulanto ama waqtiga ugu badan lagu bixiyo ee noqotay teknoolojiyada ama waxa loo yaqaan social media. Marka adiga oo isticmaalaya social media oo ku jira oo mobiladaada iyo laptopkaaga tabletkaaga wixii haysato isticmaalaya sideebaad haddana uga faa'iideysan kartaa aad u baran kartaa luqadda Ingiriiska. Maanta ayaan idinla wadaagi doonaa dhowr qodob oo la xiriira si aad uga faa'iideysan lahayd. Marka qodobkeena koowaad wuxuu noqonayaa inaad isticmaasho AI powered apps. Inaad isticmaasho applicationada inta badan ay hormuud u yihiin ama ay wadaan AI-du sida kuwa loo yaqaano ChatGPT iyo loo yaqaano Speak AI loo yaqaano ilaa luqadda Ingiriiska markaad baranayso kuwaas muhiim ku ah. Waa la sheekaysan kartaa, waxbaad u qori kartaa, waa ku jawaabayaa, fariin buu kuu qorayaa, waad u qori kartaa, waad weydiin kartaa, xataa grammar error-kaaga ayuu kaa saxayaa. Wuxuu kuu sheegayaa weliba waxyaabaha kaa maqan, waxaa kaa dhiman meesha ay tahay inaad meelaha ay tahay inaad iska dhisto ee kaa maqan. Haddii noqoto writing-ka, reading-ka, listening-ka, wixii kaa maqan marka. Sida oo kale applicationada kale la isticmaali karo waxaa ka mid ah Duolingo, waxaa ka mid ah Babbel, waxaa ka mid ah Grammarly. Yani applicationadaasna iyagu waa kuwa la mid ah oo inta badan la isticmaalo muddo dheerna la soo isticmaalayay. Tin labaad wuxuu noqonayaa marka inaad isku xidho online groups yani dad ama website iyo waxaa jira sida AI talk loo yaqaano kale Previously mid leedahay inaad la xiriidho oo aad iska diiwaangeliso oo la sheekayso dadka ajaanibta ee waddanka dibadiisa jooga oo halkaas soo wada gala oo luqadda ku practice karaya. Dad luqadda bixinaya waa ajaaniba iyo dad qaadanaya waa ajaaniba jira oo dunida caalamka oo dhan ku wada nool. Dibadana qoraal u qorayso, message aad ku diraysaan, sidaas laba qof oo Soomaali wada sheekaysanaysaan. Marka halkan waxaad ka baranaysaa yani qaabka dadka ajaanibka loola hadlo. Mar haddii muhiimadda luqadda Ingiriiska barashadiisu ay tahay ummad in loola xiriiro. Dad cilmi maaha koosan oo meel aad la tegayso maaha oo ama aad wax kale u qabsanayso, laakiin waa ummad saad ula xiriiri lahayd weeye. Marka dadkaan la xiriirto la sheekaysataa waxay ku horseedaysaa luqadda Ingiriiska si yar fudud oo fiican aad ku barato. Marka website-yaa jira, waxaa jira platformyo online ah oo dadku ay ka bartaan baa jira ama qofkaas muuqaal ha u galo ama taxi iyo cod ha duubo, laakiin kuwaasaa jira. Kiina saddexaad waxa weeye sida oo kale xilliyada aad wax daawanayso, xilliyada filimaanta iyo showyada iyo waxa aad daawanayso waxaa muhiim ah inta badan inaad daawato filimaanta la xiriira kuwa luqadda Ingiriiska ku baxaya oo weliba aad u furato subtitles aad u samaysato adigoo filimka daawanaya ama showga dhegeysanaya ama YouTube videos daawanaya haddana inaad ka faa'iideysanayso barashada luqadda Ingiriiska adiga oo dhegeysanaya oo wixii markaa aad cusub aad ku aragto ama ka faa'iideysato. Idna waa hab kale oo luqadda looga faa'iideysan karo adigoo weliba iska isticmaalaya oo social media iskaga jira oo qaadanaya waqtigii ku qaadanaysa social media. Kiina afraad waxa weeye inaad samayso qoraal. Qoraalku inta badan qof wuxuu ka caawiyaa laba hab uu ka caawiyaa. Kow barashada luqaddii yani wixii aad soo baranaysay oo horta inaad qoraal ku samayso. Laba inaad kelmadda qaabka qormaysay aad fahanto oo waxa jira kelmado English oo ilaa aad aragto mooyee aan qori karin. Marka qofku iyagana inuu qoro tusaale dad waxa jira luqadda ku hadla laakiin aan qori karin. Marka adiga wax ka caawinaysaa inaad qori karto kuna hadli karto. Marka haddii grammar mistake aad dhaco waxaad galaysaa Grammarly Google-kaada ku qoraysaa kaasaa check ku sameynaya wixii ka khaldan wixii ku saxan ku diinaya wixii ka khaldan oo ku saxaya hadda wuxuu ku sheegayaa ereyada aad ku bixin karto ku sheegaya. Marka kaasan waa hab kale oo casri ah oo ku baran karto luqadda Ingiriiska adigoo ku jiro baraha bulshada.